السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو داوده aan kula wadaago war degdeg ah oo ka imaanaya duleedka magaalada Ceergaabo oo ku saabsan in laga cabsi qabo in milishaad hubeysan ay weerar ku qaadaan gudaha magaalada Ceergaabo maadaama magaaladaasi maanta uu gaaray wafdi culus oo hogaaminayo Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan Maxamed suldaanka guud ee beesha Warsangeli suldaanka Hartida wararku waxay sheegayaan in halkaasi laga cabsi qabo in milishaad ay weeraraan iyadoo la dareemayo dhaqdhaqaaqyo xooggan oo dhanka ciidamada ah مسؤولين كتير سومالي لان أيا برنامج مجالات عرقابه وحكوسو دوجين سلطان سعيد سلطان عبد السلام وحنا سلطان كوشاجي إنه كقريب جليو شر لوجو مجعدري نبض عرقابه وطبعا لوجو جسور جدا ما ملك وقوي بري صوته ما ملك وقوي بري وله مجالات وحي كتير سنة هاي دول كمان ملك وقوي بري أيا وحي ربنا مجالات سويران عبد الرحمن عرّ ayaa laftirkiisa la soo warinaya inuu tagi doono magaalada Ceergaabo halkaas oo kaga qayb gali doono shirka uu iclaaminayo suldaanka guud ee beelaha Harti haddaba suldaankii Harti ma dhinaca Somaliland ayuu isku dhiibay maxaa khaldan maxaa soo kordhay maxaa hadda socda haddaba si aad u ogaato xogaha wararkii ugu dambeeyay waxaan dib ku xasuusinayaa in ay jireen dhacdooyin kala duwan oo cajiib ah oo markaasi ka taagna magaalada Ceergaabo iyo deegaanada hoos yimaada maamulka waqooyi bari ayaa la soo warinaya inuu isagu xilligan abaabulayo qorshayaal waaweyn oo Ceergaabo lagu qabanayo qorshayaashaasi waxaa la sheegay in intooda badan ay yihiin kuwa wax weyn u dhimi kara masiirka iyo mustaqbalka maamulka waqooyi bari xubnaha la hadalna qaarkood waxay tilmaameen in shirka lagaga dhawaaqay Ceergaabo uu noqonayo mid dharbaaxa ku ah maamulka waqooyi bari loona baahan yahay mas'uuliyiinta maamulka waqooyi bari inay il gaar ah arrinkan u yeeshaan isla markaana ay iska daayaan waxyaabaha hoose ku mashquulsan yihiin dabcan inta ay mas'uuliyiinta maamulka waqooyi bari ku mashquulsan yihiin xafladda cali masaarka Cabdiqaadir Firdhiye iyo arrimaha la xiriira ayaa Ceergaabo waxa tagi doona madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro suldaanka guud ee beelaha Harti Suldaan Siciid oo dabcan isagu maanta tagay marka maleeshiyaad sheeg dhulbaanta inay ka amar qaataan iyo ciidamo hubeysan ayaa la soo warinayaa inay hadda ku sugan yihiin banaanka magaalada iyadoo mar walba laga cabsi qabo inay magaalada duulaan ku qaadaan xogta la helayo ayaa waxay tilmaamayaan in dhowrka saac ee soo aadan laga cabsi qabo Ceergaabo oo dagaal ay ka dhacaan taas oo ay dad badan aaminsan yihiin inaysan cidnadan ugu jirin cidnana aysan faa'iido ku qabin loona baahan yahay in si degdeg ah looga jawaabo dhacdooyinada halkaasi ka imaanaya Ceergaabo bilaha soo aadan am bilaha dhihinba maalmaha soo aadan waxay noqon doontaa foolkaana ah isha ku hayaan shacbiga Soomaaliyeed sababtoo ah Ceergaabo hadda xaaladeedu sidee ku socoto waa mid allow sahal ah dhulbahantaha iyo sidoo kale warsangeliga qayb kamid ah oo dhinaca maamulka waqooyi jira ayaa laftirkooda la soo warinayaa inay markan ay wadaan abaabullo xoog leh oo dhanka ciidamada ah iyadoo laga cabsi qabo in dagaal ay ka dhacaan gudaha iyo banaanka magaalada Ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag mas'uuliyiin aan la hadalnay ayaa waxay tilmaameen goordhow in Ceergaabo xilligan aan dagaal loo rabin laakiin haddii dagaal laga fursan waayo ay magaaladu dagaal gali doonto sababtoo ah wararkii ugu dambeeyay ee la helayo ayaa waxay tilmaamayaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa in madaxweynaha maamulka waqooyi bari Cabdiqaadir Firdhiye uu qaadayo tallaabooyin dheeraad ah si looga jawaabo arrimahan iyadoo dhacdooyinka aan helayno ama warar kale helayana ay tilmaamayaan in saacadihii la soo dhaafay la dareemay culeysyo dhanka amniga ah oo ka imaanaya darafyo kala duwan ila wareedyo ayaa goordhow waxay tilmaameen in saacadda ka dambeysa la dareemayo in maamulka waqooyi bari laftirkiisa dagaalo xoog leh ay ku soo wajahan yihiin taasina iyagu way og yihiin waana tan keenaysa ayaa la leeyahay in xilligan feejignaan dheeraad ah ay galaan ciidanka maamulka waqooyi bari waxaan eegayaa dhinaca gobolka Sool ammaanka Laascaano ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoo dhowrkii saac ee la soo dhaafay la dareemay in magaalada ay ku soo wajahan yihiin bufuudo culculus madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu horeeyo xogta la helaya ayaa waxay tilmaamaysaa in saacadda ka dambeysa magaalada Laascaano amnigeeda si weyn loo adkeeyay isla markaana la dareemayo dhaqdhaqaaqyo xooggan dhaqdhaqaaqyada waa kuwo dhanka ciidamada ah Cabdimadoobe ayaa lagu wareejiyay amniga magaalada iyadoo oo xogta la helayana ay tilmaamayso in saacadda ka dambeysa
la filan karo in wufuud hordhac ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay tagaan magaalada haddii allah ugu dalo raalli ka noqdo daawadayaal haddii xasan sheekh maxamuud uu tago ceergaabo dabcan maxaa ka dhalan kara tallaabooyinka uu qaadi kara maxay noqon karaan maamulka waqooyi bari jaanas ku haysto ma ka faa'iidaysan karaa dhammaan su-aalahaas iyo kuwo kale waxaan kaga jawaabi doonaa warbixinadeena dambe haddii tay markay ku guurayso nagu soo bir oo subscribe janalkan waa mahadsantihiin saaxiibayaal soo dhawaada maalin wanaagsan